بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا محمد ولا halkan waxaan kaga soo gudbinayaa qiso yar oo aad u xanuun badan kadib markii wiil dhalinyaro ah uu jeclaaday gabar aad u qurux badan waxayna qaadsiisay cudurka loo yaqaan AIDS-ka ee aad ku daran qisadan waxaa warinaya sheekha caanka ah Nabil al-Audi al-Kuwaiti wadanka Kuwait u dhashay waxa uu leeyahay waxa fariintan ama waraaqdan ii soo diray oo boosto igu soo diray wiilkii ay ku dhacday qisadan wiilkana wuxuu leeyahay ku bilaabayaa waraaqdiisan waxa maalmaha kamid ah anigoo fadhiya meel maqaayada oo shaah cabaya waxa soo galay gabar aad u qurux badan ma arag waligay gabar ka quruxan markii ay soo gashay aad ayaan la yaabay isha ayaan la raacay isha aad ula raacay ayadana way soo fiirinaysaa ishuna way hadlaysaa wal aynu tatakalam sidii uu yiri abwaankii weynaa ee reer Ahmed Shawqi nadratun fabtisamatun famaw'idun faliqa ishu marka hore wala sarkaya marka labaad wala isku qoslayaa marka labaad waa la balamaya marka saddexaadna waa la kulmaya wiilkii wuxuu yiri waxaan ka soo baxay maqaayadii waana soo raacay gabadhii ayadana way fahantay inaan soo raacayo أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان kadib markii aan ka dareemay indhaheeda way iyirta ayuu yiri wiilkii waxayna siisay taleefankeeda waxa uu leeyahay wiilkii waa maalmihii ugu farxadda badnaa ee soo maray nolosheeda kadib markii ay taleefankeeda siisay aad ayaan u farxay aad ayaan gabadhii u jeclaaday maxaa yeelay gabadh aad ay u qurux badneed maalin ima soo martay ilaa in waa la hadlaa hal mar laba mar saddex mar ilaa mararka qaar afar mar laakiin wiilkii wuxuu yiri nasiib darro maalinkii dambe waxa xaqiiqsaday inay aad iga daaweyn tahay laakiin jaceylka u qabay iyo quruxdeeda ayaan la joogi waayay oo xiriirkii waan sii waday sidii abwaankii carbeed uu yiri wa aynu rida fi kulli aybin kalilatun lakinna ayna suqdi tubdi masawiya qofka haduu jeclaado qof wax ceeba malahan haduu nacana wax walba ceeba ayuu qofkaas leeyahay gabadhii aad jecel aad u daran baa u qaaday ceebtii daadii muxuu ahay iga weyneedna maanan arag jaceylkayga baa iga tanbadiyay saacado badan ayaa la hadlay maalinkii aad ayaa maalinkii ula sheekaystaa aad ayayna ii soo dhaweysay waxaan kala ogaaday inay xoolo leedahay ay tahay gabar taajirad ah waxaan ogaaday inay tahay gabar aad u taajir ah markaan waxaan isku helay qurux iyo jacayl iyo xoolo qurux jacayl iyo xoolo waana sii baar ayuu yiri wiilkii waxaan ogaaday inay tahay garoob oo la soo furay oo aad mar walba aan baaro oo muxuu ahay aan war ka raadiyana wax walba aan u baahdo aan si sahal ah uga helayo gabadhii aad ayuu qalbigayga u raacay gabadhii aad ayayna muxuu ahay qalbigayga u soo jiidatay maalmaha kamid ah waxay tiri waxaad iga caawinaysaa arimo ganacsi oo waxaan ku dirayaa wadan hebel si arintaas igu soo fulisid ganacsigaas haya ayaa iri aad ayaan u farxay maxaa yeelay waa tilaabtii koowaad ah ku gaari lahay kuna halan lahay gabadha aadka u quruxda badan gabadhaas aadka u quruxda badan haya ayaa iri mana ku soo celin war waxaana iri diyaar baan ahay laana maxaa yeelay waa gabar aad u qurux badan jaceelna baa u qaaday xoolana way leedahay oo waa gabar taajirad ah waan tagay oo tigidkii baan jartay diyaaradii baan raacay meeshii baan tagay waxaan ku degay hoteelka ee ii sheegtay iyo qaabkii ay igu tilmaamtay ee aan degay maalmaha habeenada kamid ah hoteelkii jiifa ayaa albaabka la soo garaacay gaw yaa waaya ayaan iri waan ka furay waxayba noqotay qofkii gabadhii oo ay muxuu ahay hoteelkii ugu imaatay waan yaabay waxaan ogaaday ii yeeratay ayuu yiri waxaan ogaaday inay xaraan u socoto arintaas arin aad u xun arintu waa arin aad u xun waan suubiyay mar labaad ayaan suubiyay mar saddexaad ayaan suubiyay micnaha waan kala zinaysanay waan ka zinaystay gabadhii kow ma ahan laba ma ahan saddexna ma ahan
إلهي سبحانه وتعالى وحيري ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هؤلاء وأنا الزنا لأن محايا لي وحادي آد وحن وضل قادنا وضل أسباب وحن ونقضي قلبي قبل ميت كحرن قبدي جعل كذي آد إيه نتري آد بأجعل هذا قبدي وأنا لا داعي آد مدة أيام كجري بلا الله أما سنة بأيام كجري جعل كذي آد أيام قبدي يسوع جيزتي لكن ما كم إذا أنا ولا لكن قاري إسلا صارنا وأنا قاري كحينا يو أي قاري وشيلنا قلي شيلكي مركونا قلينا أنيجي وان كبد بادي لكن ولا الكيبا لا عصيبي نقص دربديبا waxaan ula cararay isbitaal waxaan geeyay isbitaalkii dhakhtarkii meeshii emergency-ga markuu ka soo baxay wuxuu yiri waxa loo baahan yahay dhiig degdeg ah in lagu shubo walaalka waana sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaad dhiigaaga shubtaa waxa uu weydiiyay ayuu yiri dhiigayga noocu yahay waan u sheegay wuxuu yiri waa si degdeg ah inaad u shubtaa laakiin intaad dhiig shubin ka hor waxa ka horeeya in qofka dhiig shubaya la baaro jirkiisa la baaro waa la ibaara ayuu yiri wiilkii waa la ibaara dhiigeygii dhakhtarkii wuxuu yiri dhiigaaga kuma haboono oo looma shubi karo walaalka waan weydiiyay maxaa dhacay dhakhtarow waxa uu yiri adiga usug marka arinta dhameeyna kadib ayaan ku sheegayaa wixii dhacay walaalkii dhiig kale ayaa loo shubay iyo dad kale ayaa looga qaaday arintii markii dhakhtarku dhameeyana wuxuu yiri arintii aad weydiisay hadda ayaan ku sheegayaa dhiigaaga uma haboono in lagu shubo walaalka maxaa yeelay adiga waxaad qabtaa cudurka loo yaqaano HIV AIDS-ka waan yaabay ayuu yiri waan yaabay madaxa ayaan qabsaday ma isdishaa ma isgowracdaa tareema isku dhigtaa dabaq ma iska tuurtaa intaasi in kan badan ayaa maskaxdeeda ku soo dhacay sheekadii waxay ugu noqotay ayuu yiri mana dhiman mana nooli maxaa yeelay qofka AIDS-ka ku dhaco waxa uu u dhimanayaa si rafaad ah حيل إيريسكو مريا مرحلة كلا دوان مرحلة هوري سقف كم حوا لقى مدري ما يجيش مرحلة لبانا سيدو كله مرحلة سدح آي ضعيفة وحكون عيا مذ حنون وحكون عيا جيركيس وكسب حنا مربضن وحكون عيا على الحنون وحكون عيا مرقي وحي وحنونة يزقو سيدي وحنونة رفات قف كم مدبن ما نولا لا يموت فيها ولا يحيا ويلكي وحيري وان دريمي ماشي لقى عصيبي وان وعي قبدي أنا آدي وحناقصن وحنا إري وان وعي وحنا خويري ما وقتها إنا جرنا هاي أو محاك ودعا تري وحن قبا عيان إري عذر كلو يقان HIV AIDS-ka قصل بي لدعضي قصل آدي وين أي لدعضي قبدي قصل كي مركي لدعضي أيان وحان إري محاد القصل ليسا وحي تري أديقا وحاد كم التحي هو آن ساميي أما سمحوا هاي دبك محوا دبناياش مت كم إذا آيات هاي لأن محايا لي سنة كهر أيا وحا إيديس كان إيسو قد بيي ويل كم إذا أرى يرادا أنا وحا بلانكو قاضي ويل كستو أنا أركو إنان أقد بيو إيديس كان والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قرح ضبطن هيا يا إري ما نكسو علين ور وحنا إري الديار بان هاي لأن محايا لي وقبر آدي قرح بدن جعلنا با أقاضي حولنا ويلاد هاي وقبر تاجرده وان تجي أو تجيت كي بانجرت ديار دي برا عي ماشي بان تجي وحن كنت جي هوتيل كي شكتي يقاب كي يقول المامت وندجي وعلي مع المهبين هبين هذا كم أنا هوتيل كي جيف يا الباب كلا صوغ راعي جو يا وايا عيان إري وان كفري وحي بنقطي قفكي كبدي وأي محوها هوتيل كي ويماتي وان يابي وحن أوجاد وإيرة أيو يري وحن أوجاد إني حاران وسعته أرنتاس أرن أدحن
arrintu waa arrin aad u xun waan suubiyey mar labaad ayaan suubiyey mar saddexaad ayaan suubiyey micnaha waan kala zinaysanay waan ka zinaystay gabadhii kow ma ahan laba ma ahan saddexna ma ahan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ha u dhowaanina zinada lianna maxaa yeelay waa wax aad u xun wadda la qaadanaya waddadaas baa ugu xun wuxuu u noqday qalbigeygii mid ku xiran gabadhii jacaylkeedii aadka ii natray aad baan u jeclaaday gabadhii waana la dhacay aad muddo ayaan ku jiray bilal ah ama sanadaba ayaan ku jiray jacaylkeedii aad ayayna gabadhii ii soo jiidatay laakiin maalin maalmaha ka mid ah anoo walaalkay gaari isla saarno oo anigoo gaariga kaxaynayo ayay gaarigu shil nala galay shilkii markuu nala galayna anigii waan ka badbaaday laakiin walaalkay baa la asiibay dhaqso durbadiiba waxaan ula cararay isbitaal waxaan geeyay isbitaalkii dhakhtarkii meeshii emergency-ga markuu ka soo baxay wuxuu yidhi waxaa loo baahan yahay dhiig degdeg ah in lagu shubo walaalka waana sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaad dhiiggaaga shubtaa waxa uu weydiiyey ayuu yidhi dhiiggayga noocuu yahay waan u sheegay wuxuu yidhi waa si degdega inaad u shubtaa laakiin intaada dhiigga shubin ka hor waxaa ka horeeya in qofka dhiigga shubaya la baaro jirkiisa la baaro waa la ibaaro ayuu yidhi wiilkii waa la ibaaray dhiiggaygii dhakhtarkii wuxuu yidhi dhiiggaaga kuma haboono oo looma shubi karo walaalkaa waan weydiiyey maxaa dhacay dhakhtarow waxa uu yidhi adiga u sug marka arrinta dhammayna kadib ayaan kuu sheegayaa wixii dhacay walaalkaygu dhiig kale ayaa loo shubay tubdiin masaawiya qofka hadduu jeclaado qof wax ceeba ma lahan hadduu nacana wax walbuu ceeba ayuu qofkaas leeyahay gabadhii aad jecel aad u daran baa u qaaday ceebtii da'dii muxuu ahay iga weyneydna maanan arage jacaylkaygii baa iga tanbadiyey saacado badan ayaa la hadlay maalinkii aad ayaa maalinkii ula sheekaystaa aad ayayna ii soo dhaweysay waxaan kaloo ogaaday inay xoolo leedahay ay tahay gabar taajirad ah waxaan ogaaday inay tahay gabar aad u taajir ah markaan waxaan isku helay qurux iyo jacayl iyo xoolo qurux jacayl iyo xoolo waana sii baara ayuu yidhi wiilkii waxaana ogaaday inay tahay garoob oo la soo furay oo aadna mar walbo aan baaro oo muxuu ahay aan war ka raadiyana wax walbo aan u baahdo aan si sahla uga helayo gabadhii aad ayuu qalbigayga u raacay gabadhii aad ayayna muxuu ahay qalbigayga u soo jiidatay maalin maalmaha ka mid ah waxay tiri waxaad iga caawinaysaa arrimo ganacsi oo waxaan kuu dirayaa waddan hebel si aad arrintaas iigu soo fulisid ganacsigaas haye ayaan iri aad ayaan u farxay maxaa yeelay waa tilaabtii koowaad aan ku gaari lahay kuna halan lahay gabadha aadka u quruxda badan gabadhaas aad ishu marka hore waa la is arkayaa marka labaad waa la isku qoslayaa marka labaad waa la balamayaa marka saddexaadna waa la kulmayaa wiilkii wuxuu yidhi waxaan ka soo baxay maqaayadii waana soo raacay gabadhii iyadana way fahantay inaan soo raacayo أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان kadib markii aan ka dareemay indhaheeda way ii yeertay ayuu yidhi wiilkii waxayna siisay taleefankeeda waxa uu leeyahay wiilkii waa maalmihii igu farxadda badnaa ee soo maray nolosheeda kadib markii ay taleefankeeda siisay aad ayaan u farxay aad ayaan gabadhii u jeclaaday maxaa yeelay gabadha aad ay u qurux badneed maalin ima soo martay ilaa in waa la hadlaa hal mar laba mar saddex mar ilaa mararka qaar 4 mar laakiin wiilkii wuxuu yidhi nasiib darro maalinkii dambe waxaan xaqiiqsaday inay aad iga da'weyn tahay laakiin jacaylka u qabay iyo quruxdeeda ayaan la joogi waayay oo xiriirkii waan sii waday sidii abwaankii carbeed uu yidhi wacaynu ridaa fi kulli caybin kaliilatun laakina cayna suqdi
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا محمد. ولا halkan waxaan kaga soo gudbinayaa qiso yar oo aad u xanuun badan kadib markii wiil dhalinyaro ah uu jeclaaday gabar aad u qurux badan waxayna qaadsiisay cudurka loo yaqaan AIDS-ka ee aad ku daran. qisadan waxaa warinaya sheekh caanka ah Nabil al-Audi al-Kuwaiti wadanka Kuwait u dhashay. waxa uu leeyahay waxa fariintan ama waraaqdan ii soo diray oo boosto igu soo diray wiilkii ay ku dhacday qisadan. wiilkana wuxuu leeyahay ku bilaabayaa waraaqdiisan waxa maalmaha kamid ah anigoo fadhiya meel maqaayada oo shaah cabaya waxa soo galay gabar aad u qurux badan ma arag waligay gabar ka quruxan markii ay soo gashay aad ayaan la yaabay isha ayaan la raacay ula raacay ayadana way isoo fiirinaysaa ishuna way hadlaysaa wal aynu tatakalam sidii uu yiri abwaankii weynaa ee reer Axmed Shawqi nadratum thum fabtisamatun famaw'idun faliqa.